saan caawa waxaanu ku soo qaadan doonaa taariikhdii SYL amaba 13kii dhalinyaro ee dhaliyay xurriyadda maanta aynu harsanayno. haddaba SYL waxaa la aasaasay 1943kii 17 sano kadibna 1960kii waxay ahayd maalintii xurriyadda ay qaadatay gobolada koonfureed isla markaana ay midoobeen waqooyiga dalka Soomaaliya iyo koonfurta dalka Soomaaliya. SYL 13kooda midna kama noolo. halkan waxa taagan Dr. Cali Boolay oo isagu kamid ah xisbigii Leegada. Dr. Cali Boolay goorma ayaad ku soo biirtay xisbiga Leegada? waxaan ku booriyay 12 Oktoobar 1946 waa tahay waxaad iiga warantaa marka xisbigan SYL ee 13ka dhalinyaro ka koobnaa dabcan waxay ahaayeen 13 oo ku midoobay amba mabda'ooda oo ahaa in dalka Soomaaliya laga xoreeyo gumaystaha markaas haystay. marka maxaad ka xasuustaa taariikhdaas? SYL waa ku biiray marka ujeedooyinka ugu waaweyn 13kaas iyo SYL oo dhanba ama sharciyadeedii ku yaaliin in Soomaali midaysan la helo Soomaali weyn in loo dabaaldego maalin maalmaha ka mid ah markii xornimada la qaaday. nasiib darrase maanta waxaa dhacday in ujeedooyinkii SYL in la qalloociyey oo loo qalloociyey arrimo oo fool xun oo aan ummadda Soomaaliyeed aan meel hor umar gaarsiin karin. maxaa yeelay gobol walba waxaa laga sameeyay madaxweyne. Soomaaliya maanta waxay ku socotaa inay yeelato 100 madaxweyne. sanad walba 15 May waxaa la sameeyaa dabaaldeg loogu dabaaldegayo munaasabadaasi maalintii la aasaasay ururkaasi dhalinyarada ee SYL ee 13ka ka koobnaa. kuwani waa qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida UK ee magaalada London oo u dabaaldegaya SYL 3 sano ee ugu dambeysay ayaan ka qayb galay goobo xaflado loogu sameynayo laakiin waxaan isku dayay inaan wax badan ka ogaado in raadkii ay mareen raggii 13ka ahaa ee ka dhiidhiyay xurriyadda dalka maanta uu haysto inay jiraan cid wadadaasi hayso amba ku socoto. waxaana ii muuqata dabcan qof walba inuu niyadda uun ka jecel yahay laakiin sheekadaasi SYL waxay isugu soo ururtaa oo keliya habeenkaas damaashaadka loo sameeyo ilaa laga gaaro sanadka kale. way iska hadaltiro haddii aan waxa xaqiiqada la sheegin qofku taariikh buu ka tagaa. cali barduuri ee raggiisa taariikh bay ka tageen waa kuwa ma duugoobayso inta xumaanta samaysana taariikhdaas ka tagayaan ma duugoobayso. Dr. Cali Boolay oo kamid ahaa odayaashii u soo joogay xurriyadda isla markaasna xisbiga Leegada ku biiray sida uu isagaba ii sheegay 1946 3 sano kadib markii dhalintu ay aasaaseen ayaan wax badan oo umuurtaasi kamid ah kala sheekaystay. Dr. ku soo dhawow barnaamijka sahan waxaad iiga warantaa fikradda SYL yaa iska lahaa markii hore? runtii ahaantii SYL fikraddeedii waxaa run ahaantii abaabulkeeda lahaa Yaasiin Xaaji Cusmaan iyo saaxiibadiisii oo la joogay. saaxiibadiisu ay ka mid ahaayeen Cabdiqaadir Sheekh Saxaawadiin iyo Xaaji Maxamed Xuseen iyo raggii kale oo 10 ka mid ahaa. marka sida la ogyahay SYL waxay ku bilaabatay marka ugu horeyso ururka dhalinyarada Soomaaliyeed taasoo fikraddeedii ahayd oo ku dhalatay maadaama dawladda Ingiriiska meesha joogtay waxay u ogolaatay nimanka lida Hindida iyo Pakistaanka iyo Talyaanigii meesha joogay iyo Arab community meesha joogay waxay fursad u heleen inay dawladdii meesha ka talinaysay oo British Military Administration ahaa inay u ogolaato inay meel dhalinyaradu ay ku kulmaan club amal clubka markaas ayaa la fasaxay markii ay arkeen wiilashii dhalinyarada ah Soomaaliya Yaasiin iyo Xaaji Maxamed Xuseen iyo ay kamid ahaayeen iyo Cabdiqaadir Sheekh Saxaawadiin marka waxay ka fikireen waxay warniman yahow nimankan baa loo ogolaaday annagana maan isku dayno
si nolo ogolaado meel yar oo aan isugu tagno oo aan qaxwo ku cabno ama shaah aan ku cabno galabtii markii iskoolaadka aan ka nimaado meeshii aan ku kulmi lahayn maan samaysan markii taa dhacday way is aruursadeen marka 13 bay noqdeen markii 13 noqdeen waxay suubiyeen warqad bay waxay u qoreen xaakimkii dalka oo Ingiriiska ahaa waxay ka codsadeen in ma aragtaa dhalinyarada Soomaaliyeed loo ogolaado meel club ah ay isugu yimaadaan ay ku shaacabaan galab walba meesha isugu tagaan marka muddo ka bacdi muddo toddobaad gudaheedii xaakimkii waa soo jawaabay waxaan ila fasaxay meel sameeysta meesha sameeysanta la soo tusa markii la soo arko warqadii saxiix waan ila saxiixa warqadii loo saxiixay marka 13 koodi marka waxa bilaabatay dhalinyaradii kale inay soo galaan ay ka mid noqdaan meeshii ayaa fikradii markii la isdhaafsaday waxa la warniman yahow dhalinyaradayna Soomaaliyeed waad ogtihiin Soomaaliya 5 qaybood baa loo qaybsaday sanadkii ahaa 1884 5 Soomaali loo qaybsaday maanta annaga mid baan ka nahay qaybtii shanaad ayaan nahay marka 4 baan naga maqan marka ugu horeyso annaga qaybteeni bal aan ka shaqeyno sidii aan isugu keeli lahayn Soomaalida koonfur aan isugu keelno dhamaanteen markaasay waa la ogolaaday markaasaa dad badan soo galay xisbigii markaasaa Yaasiin wuxuu noqday xogayaha guud ururka ninka liira Cabdiqaadir Sheekh Saawadiin waxaas noqday gudoomiyaha sida aad sheegtay 13 kan dhalinyaro aqoon maysan lahayn laakiin mabda'oodu wuxuu ahaa sidii dalka Soomaaliya loogu xoreyn lahaa gumaystaha haysta haddaba umuurtaas markay u guntadeen in ay ka dhiidiyaan in dalka Soomaaliya xorriyad uu helo maxaa ka hor yimid dabcan waxa laga yaabaa in qof walba oo hawl bilaabo caqabad baa ka hor imaan karta runtii Somali Club markii la aasaasay wixii ka dambeeyay uu noqday Somali Club caqabooyin oo 4 ah oo runtii 4 la oran karo waa 4tii ugu xumeed oo soo wajahday ururka marka ugu horeysa waxa ka mid ahaa annaga dalka waxa joogay British Military Administration marka waxa la soo saaray go'aan ah in koodi wax la yiraahdo la qaado koodiga waxa waaye East Africa waa laga qaaday qof walba canshuur baa laga qaadaa marka koodigaasay Soomaalida ma aqooni markii ay arkeen oo arintaasay waxa u muuqatay ururka wuxuu u muuqday in ay arin fool xun ay tahay arin gumaysi ah markaas waa ka dhiidhiyeen waa la hortaagay in la ogolaanin koodiga waxa waaye canshuur nafeed qof walba in canshuur laga qaado ay ahayd taasi waa laga dhiidhiyay waxayna ahayd 1946 bay ahayd waa laga gudbay 1947 waxa dhacday niman la deganaa oo Arab community la yiraahdo waxay damceen inay iyaga ismuujiyaan banaan bax ayay sameeyeen ay leeyihiin dalkan annaga waxbaan ku leenahay maxaa yeelay Arab community ana la yiraahdaa annaga dadkan hoggaan u ahayn markii ay soo baxeen waxay soo mareen afaridoodka meesha Soomaalida ay u badan tahay iyo farda iyo fardo saaran iyo saafaf wata ayay meesha soo mareen marka dhalinyaradii meesha joogtay waxay uga warnimanka maxay yihiin saaf soo qaatay dalkeena dhexdiisana ay fardo ku marayaan maxay yihiin waa laga hortagay waxa bilaaway dagaalka nin la oran jiray Abshir Kaahiye oo dhalinyaradii waagas ahaa markaasay waa laga eriyay afridoodkii waa laga bixiyay mar dambana iskuma soo noqonin waa kala tagan iyagan taasay waxay ahayd dhacday labaad ugu darneed maxaa yeelay dad ajnabi ah inay kula sheegtaan dalkaaga yay ahayd taas midda saddexaad waxa waaye 1948 11 Janaayo waxaa dalka yimid 4 dawladood 4taas waxa kamid ahaa Mareykanka Ruushka Faransiiska iyo Ingiriiska maxay ka soo dooneen markii afartooda waxay ka soo dooneen maadaama SYL ay codsatay in 4 dawladood oo waaweyn inay kormeer ku yimaadaan inay muujiyaan inay iiga ay doonayaan xurnimo u doonayaan Soomaaliya
laakiin goorme ayaa la ogaaday in 13 dhalinyaro ay u saageen dalka Soomaaliya inay ka xoreeyaan arintaasi gumaystuhu goormo ka war helay wuxuu ka war helay maadaama markii ugu horeyso oo kalaab u ahaa kalaabkii wuxuu isku bedelay 1947 wuxuu isku bedelay xisbiga markii ay dalbadeen calanka oo SYL wuxuu ahaa gaduud marka xukuumadda Ingiriiska markii loo geeyay way soo diiday waxay yiraahdeen annaga calan gaduud ma aqbalayno ay yiraahdeen markaas SYC Hamar Youth Club niman la yiraahdo oo dhalinyaro ahaa iyagan oo calan lahaayeen calankoodan bulug markaas waxa laga ay isku afgarteen labada calan in isku dhajiyo marka ka bacdi SYL ahaan loo dalbo 1960kii 26 Juun waxa xorriyadooda ay qaateen gobolada waqooyi iyadoo kowdii Luuliyana ay midoobeen koonfur iyo waqooyi waxaana habeenkaasi calanka lagu saaray magaalada Muqdisho halkaas oo koonfurta Soomaaliya xorriyadooda ay ku qaateen cali boolay waxaan jeclahay markii inaan ku weydiiyo habeenkaas calanka udubada loo taagay amba la suray ee waqooyi iyo koonfurna ay midoobeen 13kii SYL yaa ka noolaa 13 baa ka nooleed 3 ka dhimatay habeenkaas adigu waxaad ka mid ahayd dadkii ka qayb galay munaasabadii caleemsaarka dareenkaaga sida buu ahaa wallahi dareenkay wax weyn u ahaa maxaa yeelay bilawgii halgankii waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii SYL horseedkan ka mid ahaa marka waxa aniga fursad aanu helay maalintaasay farxad weyn baa igelisay maxaa yeelay ujeedooyinkii oo SYL oo ahayd in Soomaaliya laga xoreeyo gumaysiga taasay hidida weyn ay ugu dhalisay habeenkaas ilma iga timid anoo dhalinyaro ah qofka hal mar haduu dhinto wuu dhintay laakiin qofka haduu fikrad keenay oo asiin uu dhinto oo fikradan la dhimata laba mar muu dhimanino saas sidoo kale cali boolay waxa uu ahaa madaxa shaqaalaha Soomaaliya sanadkii 1956 ilaa 1958 isagoo waliba ahaa wakiilka Soomaaliya u fadhiya magaalada Geneva ee dalka Switzerland oo xarunta ururka shaqaalaha adduunka halkaasi ku taalay waa kan isagoo xamar ku soo laabtay oo ka waramaya hawshii uu aaday Geneva. La storia del movimento sindacale in Somalia ha iniziato nel 1949. Questo movimento sindacale raggruppava solamente i dipendenti delle pubbliche impiego. Nel 1952 ha preso la denominazione del sindacato lavoratori della Somalia. Somalia toso isku tiirsaday hadba kiini taagdaranay taageera weligiinay istikhyaar qof loo diido la adoonsadanahay Somalia toso isku tiirsaday habkiina taagdarane taageera weligiine si kastaba ha ahaatee 15 May sanad walba sidan oo kale ayay dadku ugu dabaaldegaan iyagoo xusaya maalintaas qiimaha ay lahayd laakiin ma dhici kartaa in la helo dhalinyaro bedesha 13kii SYL ee maanta soo noolaysa xorriyadii dhimatay 68 sano ka hor rag ay ku fakareen in dalka Soomaaliya ay xoroobo haddaba dalal aad u fara badan ayaa Soomaaliya kadib xorriyadooda helay maantana ah kuwa horumarsan dabcan qof walba markii aad maanta weydiiso sababta Soomaalidu ay isku dirirayaan cid si sax uga jawaabi kartaa ma jirtaa SYL waa ay dhinteen dadka qaarna waxay sheegeen in xorriyadii iyagu ay la dhinteen laakiin ma dhici kartaa in dhalinyaro bedesha dhalinyaradaasi maanta u istaagta dalka Soomaaliya sidii uu nabad bixin lahayd